Maanta waa idin salaamay. Caawa casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay sida loo waxeeyo Gmail-ka. Casharkii ka horeeyay waxaan ka hadlay sida loo waxeeyo Facebook-ga. Casharkaana wuxuu ku saabsan yahay sida loo waxeeyo Gmail-ka. Casharkaan waxaad kaga faa'iidaysanaysaa sida loo waxeeyo Gmail-ka. Waxaana ka maarmaysaa inaad qof dhigid kaali Gmail iyo waxee ama aad lacag ku bixidid adigoo gurigaaga joogo, internetkaaga furane, gurigaaga jooga waxeysane magaalo adoo aadin, qof aad lacag ku bixin oo lacag ku siinin aadin iyo waxee baad waxeysan kartaa. Marka casharkaani ka faa'iidaysta, subscribe-na ii saara si aad waxyaabihii aan soo geliyo saad u aragtid gabaleelkana furo. Marka casharka gudagalayaa waxaad tagaysaa Google, aad tagaysaa Google. markaad tagtid Google waa kaasaa adee waxaad browser-ka aad ka isticmaalaysid baad tagaysaa. browser-ka markaad tagtidna Google ama Google Chrome waxaad ka isticmaalaysid aad tagaysaa waa ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waxaad tagaysaa ani hadda kolay waaba ii dooran yahay oo hore ayaan usoo doortay. Marka adiga Google Chrome ka tagaysaa, Gmail-ka ayaa qoraysaa. kabacdina waa kan hadda saasaan u soo saaray ana hore ayaan usoo diyaarsaday. waa kana Gmail-kii waa kan uu soo baxay. halkaas waxaa loogu talagalay email-ka iyo password-ka qofka uu waxeysan yahay. adigu waxaad u baahan tahay inaad waxeysatid. marka meeshaas kuma qoseeyo, meeshaas wuxuu qoseeyaa dadka u waxeysan. ciwaan haddaad haysatid, ciwaanka gelinaysaa, next baa leedahay, password-ka gelinaysaa, taasoo kugu shaqeynayaa. balse ciwaan ma haysatid, waxaa sameynay create account baad ka dooranaysaa. meeshaas ku qoranta waad u jeedaa create account baad ku dhufanaysaa. bas kabacdina myself to manage my business, for myself baa ka dooranaysaa. adiga ayaa u waxeysan, nafsad ahaanta u waxeysanaysaa. wuu raadinayaa kabacdi wuu soo baxaa. waa kaasaa first name, last name. halkaasina waa Gmail-kii. magacan waxaad rabtaa gashan kartaa. muhiim maahan inaad hal magac gashato, waajib maahan inaad magac kaliya doorto. adigu waxaad rabtid option-kaaga adaa iska leh. waxaad rabtid aad gashan kartaa, waxaad rabtid ku qori kartaa. marka aniga hadda magacyo waxaan sameynayaa oo tusaale kaliya ah waaye. Gmail aniga waa ii waxeysan yahay. xaggaas first name ku qoraysaa, xagga last name magaca kale ku xijinaysaa. meeshan hoosena waa magaca waxa weeye Gmail-ka waaye. marka labadaas magac first name iyo last name aad qoratid, hoos wuxuu kugu soo saarayaa labada magac oo la isku daray oo xaraf lagu xijiyay kugu soo saarayaa. markii kii ku cajib geliyo aad dooranaysaa. maahan inaad qoraysid magac oo iska qoraysid. waa kaasaa meeshaas ayuu kugu soo saarayaa. meeshaas midkaad rabtid ka qoranaysaa. hadda aniga awal waxaan ku qoray Taajir Cismaan baa ku qoray. hadda asaga wuu isdaba mariyay, wuxuu soo hormariyay Cismaankii soo hormariyay, Taajirkii uu gadaal marsiiyay, wuxuuna ku daray 8. mid kalena wax eeda ma lahan, mid kalena 513 ay wadataa. waxaad rabtid aad ka dooranaysaa. adiga magaca aad ku qoratay, muhiimadda waxa weeye magaca ku qoratay, magacii aad ku qoratay wixii ku cajib geliya aad ka dooranaysaa. waa kaasaa ana waxaan ka dooranayaa Cismaan Taajir 8. Gmail-kayga wuxuu noqonayaa markaas cismaantajir8@gmail.com. marka adiga waxaad rabtid ayaad dooran kartaa. bas kabacdi waxaad usoo wareegaysaa password-ka. password-ka waxaad rabtaa ka dhigan kartaa. muhiim maahan hal lambar, muhiim maahan magac kaliya. waxaad rabtid aad ka dhigan kartaa. laakiin password-ka waxaa la rabaa inuu ka badan yahay 8 lambar ama 8 xaraf. haddaa kolay magaca ka dhiganaysid, magacaas waa inuu 8 eray ka badan yahay ama 8 xaraf uu ka badan yahay ama uu 8 xaraf uu yahay. haddaa lambar ka dhiganaysid waa inuu 8 ama wax ka badan uu yahay. marka waa kaasaa confirm password-ka markaad qoratid wuxuu check-gareynayaa password-kaas aad qortay wuu check-gareynayaa. sida uu check-gareeyo confirm baa leedahay. confirm baa mar labaad kii aad qortay ku celinaysa. maahan inaad mid labaad qoraysid, mid labaad qori maysid. password-kii hore aad u qortay aad confirm leedahay waa qoraysaa. bas markaad confirm ku dhihdid
وهكذا هذا أقرأ كان كفاين بالله واسكوه بينيا سفيعن باسويركا وإنا سفيعن إسكوه بيسا محايا لده حداد باسوير قلدا كو حسد جيميلك هودو تهيلي ميسيد marka sida ugu wareerin baasaweerka si taxadar leh aad u fiir magac hadaad ma aragtay maxaa ilowdid meesha gmailka ka tagaysa magaca meesha gmailka aragtay laakiin baasaweerka alkimaysid marka baasaweerka waa iska hubinaysaa next baa leedahay waa kana uu wareegsamaya uu shaqeynaya next baa leedahay meeshaan la soo gaaray meeshaani waxa weeye waxaa ku qoran qota wadamada aad ka joogtid baa qota dooranaysaa anad waxaan ka joogaa wadanka waxaan joogaa Uganda joogaa faraha Uganda waxa weeye +25 waaye marka muhiim waxa ah oo waajib ah wadanka aad joogtid inaad dooratid hadda aniga Uganda joogo ma dooran karo Soomaaliya hadii aan doortane de lambar Soomaaliya la rabaa inaan geliyo marka aan geliyeen koodka wuxuu ku dhacayaa lambarkaas ku dhacayaa marka jaawarar bay noqonaysaa intaan qofkii aan wacaan dhaho koodka ishe waxaas dhan jaawarar bay noqonay marka waxa muhiim ah wadanka aad joogtid lambarkiisa aad isticmaalaysaa wadankii aad isticmaalaysaa wadan tusaale kale aan hadda Uganda jooga Uganda doortay lambarkii Uganda haystaan geliyay wakaasa next baan dhahay bas wakaasa next baan dhahay koodka wuxuu ku soo dhacayaa lambarkay ku soo dhacay wakaasa uu soo dhacay koodka wakaasa uu soo dhacay koodka markii gelinaysa meesha waxa tagaysaa maaseedka tagaysaa qaybta maaseedka oo maaseedka caadiga ba tagaysaa maahan koodka inuu gmail ku soo dhacay gmail hadda ayaa waxeenaysaa hadda ku soo dhici maayo koodka meesha maaseedka tagaysaa wakaasa koodka koobi baa soo leedahay koobi marka soo dhigid meesha ku soo laabanaysaa basti baa ku leedahay xogaa waxba qalada raacsan intaas inta wixii dhamaayo koobi soo dhahay marka ka tirtiraysaa waxa ku deynaysaa inta lambarka ku deynaysaa ama hadii aysan ahayn lambarka ayaa soo aqrinaysaa taas oo gelinaysaa waxa hadda lambarkii ku joojiyay verify leedahay qalad baa jira qalad yar ayaa jira qalad baa jira qaladku wuxuu ka jiraa halkan ayuu ka jiraa qaladka meesha ku jira jiidaas iyo aayadaas tirtiraysaa still qalad baa jira waan tirtirayaa back aan sameeynaya waan ka laabanayaa cusub baan raasanayaa kii hore waa iga fashilmay baasaweerka waxa la rabaa baasaweer saxsan baa la rabaa koodka waxa la rabaa kood saxsan baa la rabaa hadii koodka hore waa iga xumaaday mid kale hadda dirsaday kood kale soo dhacaa qalad ayaa jira ayuu yiri marka hadda kood cusub waa kaas oo soo dhacay 335620 335620 kaas koodka gelinaysa verify baa leedahay wakaas automatically bas markaas waxaad dooranaysaa waqtiga aad dhalatay bisha aad dhalatay maalinta dhalatay sanadka dhalatay waxaad dooranaysaa baashani waxaad ka ilaalisaa inaad 18 sano wax ka yar ku qortid sanadka hadaa sanadka qortid 2010 ku shaqeyn maayo waayo gmail kan looma ogola ciwaan oo dhan looma ogola qof aan qaan gaarin marka waa kaasa anay kolay bishi waxa la dooran kartaa waxa rabta ka dhigan kartaa diidka waxa rabta ka dhigan kartaa laakiin muhiimadu waa sanadka waaye sanadka waa inaad 18 ka badsaa laakiin hadaa 18 ka yareysid kuma shaqeyn karo oo waxa lagu leeyahay waa dayatay female iyo male waxa taa ka dooranaysa hadaa dumar tahay female hadaa rag tahayna male هذا الميل بعد وقتي next baan ahay waraadinaya waa kaasa marka kita more for your number yes leedahay am escape waa kaasa gmail ka tuu soo baxay agree baa leedahay I agree waan ku raacay waxaas waxay siin laakiin agree baa ka leedahay agree marka dihidid waa kaasa welcome Taajir Cismaan gmail kiisaas uu ku xeesan yahay Taajir Cismaan baa hadda gmail magaciisa ah marka waa kaasa gmailkeen asxaabta laga faa'iideysto cashirkan hadda waa kaasa gmailka waa ka way xeesan yahay
mid kalena ogsoonaada Gmail-ka la'aantiisa mobilka waxba ma noqonayo haddaad maanta mobil soo gadato mobilkaas aadan Gmail u waxaynin mobilkaas wuxuu yahay malan waayo wax social media oo dhan wuxuu ku shaqeeyaa haddii YouTube noqdo haddii Instagram noqdo hadduu maartay Facebook noqdo wax kasta inta WhatsApp wax lambar loo isticmaalo inta ka ahayn wuxuu ku shaqeeyaa